aragtiin aniga Xaliima la yiraahdaa aniga dawlad waa jeclahay waxa dawlad la yiraa waa jeclahay maxaa idin la asaas aniga waxaan wax ku soo bartay nidaam dawladeed reer lacag badan kama dhalan wax barashada meesha u sareysaan ka gaari lacag la'aan waxa ay gaarsiiyeen waxay ahayd dawlad jirtay ahayd oo gaarsiisay nidaam dawladaan ku soo koray nidaam dawladaan ku soo dhaqmay nidaam dawlad ilaa ay ka burburtay dawladii aan u soo taagnaa dawlad waa jeclahay maxaa yeelay waxaan arkay dawlad la'aantu waxa ay ahayd dhibaatada ay qabsatay iyo qaxii qabsaday iyo rafaadka ay qabsaday iyo inta jeero qatar u galay in la xoogo waxa soo dhan aan soo arkay experience fiican aan leeyahay daraad waxa la idhahay dawladii wasiir prime minister ka ah Cabdiwali la shaqeysaa waa kana ilkaas oo imarqaatika Cabdiwali u shaqeysaa oo u waxaynaysaa Cabdiwali uma shaqeynay dawladan la shaqeynay aniga maantana sidoo kale aniga madaxweyne xasan horta aniga prestige madaxweyne aan leeyahay kii yimaada iyo kii tagaba maxaa jira waa magaca ay leeyihiin oo aan meesha ku geysanay haday xun yihiin iyo haday fiican yihiinba waxa waay he is my president hadduu xun yahay waa u qabsanaa hadduu fiican yahayna waa ku riixaa laakiin title-kii aan siinay oo xildhibaanadu ay ku doorteen way aan walaalkay Cilkaas maanta oo dhan xildhibaan u leenahay markii waa title uu leeyahay uma diidi kari aniga waa inaan ku sharfaa oo aan ku qiimeeyaa title-kaas madaxweyne xasan waay xasan sheekh ma aha waa he is the president of Somalia ay isku raaceen hadduu xun yahay hadduu fiican yahay another issue waay kaas taasna taas waa dawladda hadda jirta haday xun tahay iyo haday fiican tahay sababta aan u taarsanaynaa waa magac dawladeed dawlad Soomaaliyeed waaye ayadaan rabaa inay cadowyada badana la sheegay inay iga celiso haday iga celin weysana waa inaan la xisaabtamaa accountability wax la yiraahdo jira on kula xisaabtanaa on dhahnaa wixii la idin doortay mandate-kii la idin siiyay kuma dhaqmaysiina naga daga oo naga hara midda kale waxa waay Soomaali waxa u sheegaa markasta xumaanta leeyaan ka hadlin hadaan xumaanta ka hadalno niyada naga sii xumaanaysa waa sii jabeynaa hoosaan u soconeynaa wax weyn aan noo qabsoomay wax weynna waa naga xun yihiin labadiiba aan sheegno intii xumeedna aan sheegno intii fiicnaadna aan sheegno waxaan tusaale u soo qaadanaa baarlamaanka waxa la yiraahdaa baarlamaan ma aha waa qurun mooshin kaliya yaqaanin waxba ma qabtaan ani waxa idin leeyahay baarlamaanku inuu fiican yahay inuu wanaagsan inuu shaqo badan qabtay waxyaabaha aan ku taagana oo ku jirno inuu qabtay hadda daahir mar wuxuu ka hadlaayay investmentiga maalin dhaweeda 7 akhris marteena u maleynaa sharciga investmentiga sidii la iskugu haystay iyo sidoo ahaa 7 akhris ay subax kasta u soo galayeen ka hadlaayeen waqtigooda ku dhimanayeen waa ansixiyeen kaas kaliya ma inta shuruuc iyo inta biilal iyo inta muxuu ahaa heshiisyo lagu shaqeynayo maalin kasta u fadhiyaan ay ku shaqeeyaan ay ka hadlaan wuxuu soo qaatay baddi waa ogeedeen meesha ka istaagan iyo meesha kaga hadleen xuduudaha dadkan la dilaa waxa soo dhan baarlamaanku shaqo jira ee shaqadii uu qabtay intaan ka boodno mooshinkii uu sameeyay oo asagana baab kala ah kaliya ay noo muuqanin waxa aan miisaano walaalayaal oo gacali waxa waa inaan miisaana madasha walaalahay waxay sheegeen guddiga doorashooyinka in hawshoodii la qaatay guddiga doorashooyinka anigu ma qabo in hawshoodii la qaatay guddiga doorashooyinka shaqadiisu waxa way meesha idin kaga bilaabay doorasho xaq fair ah halka sanduuq la dhigo xuduudaha la dhigo la galo mana hayna taas shaqadeedii lama haayo waxa la haayaa wax heshiis ummaddu inay ku heshiiso madasha markii la sameeyay baarlamaanka jira maxaa loo sameeyay madal baarlamaanka inuu arintan sameeyay aheed haddii baarlamaankiiba wixiisi madal laga sameeyo oo heshiis lagu noqdo oo baarlamaanka naftiisa uu heshiis ku noqdo ku jiro waa ku jira baarlamaanka Ilkaas been ma sheega jawaari gudoomiyihiina waa speakerkiina waa ya oo baarlamaankiiba ku jiro maxaa guddiga loo sheegaa markii hooyadii dhashay inta halkaas la dhigaa madal la sameeyay cidda kaliya oo u report gareyna anaka waa baarlamaanka hay'ad madax banaanana laakiin cidda aan huwanahay oo dalada noo ee baarlamaankiiba hadduusan madashii ahayn anagu maxaa noqonaynaa marka xageen joognaa waa laakiinse habka ay u socoto iyo sida ay u socoto aan ka warsugno waxba soo socdo baarlamaanku waa u gamban yahay anagu waa fiirineena bal waxa yimaada aan aragno waana siday noqotay iyo siday ahaataa loogu dhaqmi karaa laakiin anigu waxaygu waa doorasho
security gaan ka hadlay doorasho iyo security ayadana waa isku xiran yihiin wadanka waxaa ka jira ururo diini ah oo ka soo horjeeda nidaamka dawladeed oo ka soo horjeeda jira waxaa ugu horeeya al-shabaab maanta waxay gaartay in ciyaal la soo aruuriyo oo Puntland la keeno xildhibaanka waxyaabo badan oo waxa jira oo runta oo noo sheegay tanaa ka mid ah mas'uuliyadda waaridka waxaan gaarnay mas'uuliyad waarid xataa inay jirin wadan iska daa in mas'uuliyad laga qaade war cunug 12 sano jira ama 13 sano jira oo hooyo iyo aabba dhaleen soo askari ku noqon karaa oo meel kale loo geyn karaa sababtu waxa waaye afar guursateen 20 cunuga dhasheen idin ma tirsana ilmaha maba idin tirsana maba kala ogidiinba mas'uuliyadiina meeshaas aad uga tagteen runtii taas waay taada kale waa la qabaa daahir mire in la iska difaaco bulshaduna waa inay iska difaacdaa Puntland door weyn ka ciyaartay heerka ee uga hortagtay galmudug ay hadda mare laakiin Puntland iyo galmudug waa laga horeeyay 2008 ilaa hadda la joogo 2016 al-shabaab magaalada dhuusamareeb la yiraahdo caabud waaqil yiraahdo xeraa la yiraahdo gurceel la yiraahdo balanbal la yiraahdo cag waa dhigi waayeen mana laga hadla lamana dhaho mana la faano joornaalana lagu ma dhigo ma fahamta cag waa dhigi waayeen cag sababtana waxa way bulshadaas iska celisa anoo jooga meeqa goore iigu soo galeen on muxuu ahay intaan banaanka uga baxnay la iska difaacay ilaa iyo maanta saastay mas'uuliyadana wada saaran shabaabka naftooda waa dadkeena ilmahaas waa dadkeena wadankan saan u wada difaacan lahayn oo nabad uga dhalinayn aan ka wada shaqeyno Puntland saantiri iyo Jubbaland saantiri iyo galmudug saantiri calamadan baasan loo kala qaybay inta la iska daayo mas'uuliyadda la saaran oo wadankeena aan ka shaqeyno hal mid aan ku daraa madasha walaalkay wuxuu yiri waa group yar oo raba ayaga inay sharaxaan oo musharaxal saas waxa la mid ah saxiixayaashi way wada sharaxnaayeen ayaga barnaamijka dajiye ayaga road map ka dajiye ayaga doorashada sameeyay anagoo gudi ah ayaga sameey laakiin nasiib darro hal ayagi kamida soo ma gelin doorashadii waa ku wada dhaceen hal ayag dadkii diyaarsaday hal kama soo gelin tan ilaahay waxaan rajaynayaa meesha ugu fiican oo ugu haboon oo dariiq ugu wanaagsan ilaahay inuu gaarsi laakiin walaalkay ilkaas waa la qabaa doorasho maxaan ka hadalnaa naagti maxay tiri waxaas ii war iima yaalo soo ma ahayn maxaan ka hadalnaa doorasho xaalka ku jirnaa alla ogyahay saasay Africa,